18 May waa maalin taariikhi ah oo si weyn ugu suntan shacabka Somaliland waana maalintii ay Somaliland dib ula soo noqotay madax-bannaanideedii 1991 kadib burburkii dowladda Soomaaliya. Somaliland waxay markii ugu horeysay xorriyaddeeda ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska 26 Juun 1960 iyadoo noqotay dal madax-bannaan. 5 maalmood kadib 1 Julaay 1960 waxay si iskeed ula midowday Soomaaliya si loo xaqiijiyo himiladii Soomaali weyn. Hase yeeshee midowgaasi wuxuu sababay caqabado siyaasadeed iyo dhibaatooyin culus oo shacabka Somaliland soo food saaray iyagoo la kulmay dagaallo, duqeymo iyo burbur baahsan. Kadib burburkii dowladda Soomaaliya, Somaliland waxaa laga dhawaaqay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco 18 May 1991. Go'aankan ayaa ku yimid shirweyne ay ku mideysnaayeen dhammaan beelaha Somaliland. Markii bari iyo galbeed bay isaga yimid Burco ma maqlaan Suldaan Somaliland bari iyo galbeed hebel Suldaan la yiraahdo siyaasi maqlaan ma jirin bari iyo galbeed wala ilaa baran shir qaran buu ahaa asana ba qaban qaabisay madax banaanidii Somaliland la soo celiyo Somaliland tii gobonimada ka qaadatay Ingiriiska ay xamar ka soo go'do oo ay sida awal ba ahaan jirtay wadan madax banaan oo goonidiisa u taagan oo cagihiisa ku jooga ay u noqoto. Shirweynaha Burco wuxuu sidoo kale noqday madal lagu adkeeyay midnimada, dib u heshiisiinta iyo sidii shacabka reer Somaliland u dhisan lahaayeen qaran nabdoon oo mideysan. Waxaan ku kalsoonahay inaynu dariiq sax marayno inaynu talo lagu waaro oo dhaxala aan maanta laga talin dhaxagaan ka talin inay soo gaareen. Waxaa halkaasi lagu aasaasay tubtii dib u dhiska dalka, nabadeynta bulshada iyo yeglelidda nidaam dowladeed oo ku dhisan wadatashi iyo isku duubni. Waygaarisu taago gaarkiisa isu taago waa koofu raacay oo ay teena kala barqad xanoo tijaabino teena waygaarisu taago waa farxado ka kooban. Odayaashii shiray natiijada ka soo baxay dowladdii 60kii la geeyay xamar in dib loo soo celiyo. 18 May waa astaan qarannimo, midnimo iyo halgan oo ay shacabka Somaliland ku doorteen aayahooda. Waa maalin xusuus gaar ah oo leh dib u soo noqoshada madax-bannaanida kuna suntan geesinimo iyo himilo qaran.